بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الأخوان من كل مكان، موجود من كل مكان. عارفين ما كسائنا فهمتني هاي لا ياوني أرين يرى روينا كهلا كودي horta qofan wax ogeyn ilaahay ma cadaabo. saan hore idinku sheegay adduunyada sheeko kasta laba dhinac leedahay. sheekada markay dhinac maqashid isku day dhinac kalena inaad wax ka ogaatid, laakiin hal dhinac intaad dhegaysatid qofka bani aadanka aad ataagaraysid khaladaa kugu tahay, ilaahay agtiisana dembigaa kugu tahay. maxaa yeelay xaakim waa ilaahay. marka maxaa layidhi afdawoolan dahab waa mana qof aytimana afga usik yaalo, qofka aytima afkiisa asaa ku yaala. okay, markaan dhahay anaka jannadan ku dhalanay, micnaha waxaan ku wada nabiyullaahi aadam markuu ilaahay abuuray intee lagu abuuray? jannada dhexdeeda aa ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray. ma fahamtay? horta waxaa jirtay ninka la dhahaa shaytaan, wuxuu ahaa magaciisa runta waxaa la yidhahdaa Azazel. he was a leader, wuxuu ahaa hogaamiyaha malaa'igta hogaamin jiray. magaciisa runtan waxaa la Azazel, ninka la shaytaan. marka nebi aadan oo meel yaaloo arkay, af loo sameeyey, sanka wax kasta ya, marka jogu siiyey sound oo sameeyey, sound click, you know like ya sameeyey. marka wuxuu dhahay hada insaan daciif. marka wuxuu dhahay hadday noqoto ina aniga wax ku baro, wax kasta saytaan kuu tusaa. ya wuxuu la hadlaya macnaha nebi aadan oo weliba ruux aan la gelinin ayaa shaydaan la hadlaya. uu leeyahay mataqaana hadday noqoto ina aniga macalin kuu noqdo, wax kasta si xaqiiqdan kuu tusaa. laakiin uu dhahay hadday noqoto ina adiga i hogaamisid, kaama yeelaa layiri doqono. sheekaas ma soconaysa layiri ninka la dhaho Azazel. marka ilaahay markuu ruuxu geliyey aadam calayhi salaatu wasalaam, kow wuxuu sameeyey wuu hindisooday. markaa hindisooday ilaahay subxaana wa tacaala yidhi raxmaka allah. ma fahamta? fiir, ilaaha dhahay mush insaan taani. markuu xidisow dhahay ilaaha subxaana wa tacaala yidhi raxmaka allah. ma fahamta? marka ilaahay wuxuu dhahay aadam calayhi salaatu wasalaam malaa'igtaas u tag uu dhahay. marka uu u tagay malaa'igta, u dhahay assalaamu calaykum. waxay dhaheen wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu faray aadam, wuxuu dhahay salaamtan adiga iyo ilmahaada waaye. ilmaha yaa waaye? anaka ka mid ah. ma fahamte? salaanta marka aadam la abuuray soo bilaabatay ilaa hadda socotaa. ma fahamte? marka wixii qalad anaa iga imaaday, wixii fiicanna ilaahay subxaana wa tacaala u sugnaatay. because insaan laciifan ahayno. ya insaan laciifan ahay. okay, ariga insaan intay ka imaato waaye?
maxaa yeelay nebi aadam calayhi salaatu wasalaam 1000 sana la siiyay adduunka inuu joogo. marka cunugiisu arkay Suleymaan calayhi salaatu wasalaam wuu weydiiyey, wuxuu dhahay kam cumro, da-diisa mee qabay? 60 sano. markaasuu dhahay 40 sano ha loogu daro dhahay. marka ma hubtaa layiri, waa la silgaraynaa, la saxiixa, ma fahamtay ya. marka sidii uu sameeyey, markuu jiray 960 sano waa loo imaaday. markaasuu ninkan wuxuu la soo istaagay, war aniga 1000 sano ilaahay is weri, 1000 ma gaarin, inta ii wadaa. marka malakamooduu dhahay, ma ilowday cunugaaga inaad siisay 40 sano. marka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay, aadam wuu hilmaamay, ilmihiisana way hilmaamayaan. marka ilowshada nebi aadana kusoo bilaabatay calayhi salaatu wasalaam, abkoogeena. marka dee ilaahay anaka markuuna abuuray, micnaha aadam dhabarkiisaan kasoo go-nay. maxaa yeelay nebi aadan ilaahay wuxuu ku abuuray jannada gudaheed. sheekada idinka laf markuu dhahay, ilaahay wuxuu dhahay aadam, horta ilaaha wuxuu yiri malaa'igtu yiri anbiuni biasmaa'ihaa in kuntum saadiqiina, magacyadiina ii sheeg haddaa run sheegaysaan, soo ma. marka maxay dhaheen, laa cilma lana ilaa maa calamtana, wax ma naqaan ilaa waxna barta mooyaane, ma fahamtay. marka ilaahay aadam uu dhahay anbiu biasmaa'i haaulaa'i, magacyahoodu sheeg u dhahay. markaasuu dhahay jibriil, makaa'il, asraafiil, marka la yiri like fasjudu li aadama, usujuuda ayaa la dhahay aadam calayhi salaatu wasalaam. fasajada, malaa'igta dhan waa sujuud garaysay, ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin. ilaa ibliis ayaa diiday, uu kibray, wa kaana min alkaafiriin, wuxuu ahaaday kufaar ka mid noqday. maxaa yeele amarka la amray u diiday, sax wala la. marka aadam markaasuu kabu noo gashtay, maxaan ku dhihi ninka shaydaan markaasuu kabu noo gashtay inuu destroy nagu sameeyo. abkoogeena aadan kusoo bilaabay. marka haddii markay marihii cunaan iyakoo jannada ku jiraan, because jannada dhexdeeda waxa waaye dee xaar iyo kaadi iyo wax ma jiro mano, ma fahamtay. marka for that reason la yiri ninka la dhaho nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam, ihbitu fi larli, arlada tagaa lahay mataqaanaa adigi, fahamtay. ilaa iyo amar dambe camal. amarka dambe maxaa qofka markuu dhinto kulli shay arji ilaa asli mano, qof markuu dhinto ilaa uu noqonaa soo maha. marka midaasaan ka waday markaan dhahay anaka jannada ilaahay nagu abuuray, jannadaan ku dhalanay because abkoogeenaa ku dhashay ya. ayeydeenana ya dee feertiisa bidaxa lagu sameeya xaawo makaste. marka alxamdulillahi rabbi alcaalamiin. bal mid kale ogaada fiiri, ilaahay subxaanahu watacaala ghafuuru raxiim shadiid liqaab inuu yahay. xaawo waxaa lagu abuuray feer bidaxa, waa dhinaciisa, sax wala la. madax meel lagama soo goyn, lugta meel lagama soo goyn, dhegta meel lagama soo goynin. you see what I mean? waxaa laga dhigi halfkiis. you see what I mean? yeah, king and queen. that how it goes, right? marka dumarka horta maasha allah ilaaha darajiyey oona karaamadeeyey. anakana waxa waaye dee stupid aan nahay, as a man we make a lot of mistake. marka dee dumarku meel kastoo joogtaan raal lahada 114 qur-aanka 6666 aayadaha qur-aanka. dumarka raalli naga raalli ahaada noo macnaa makastan, we only human. waxaan nahay mataqaanaa what they call male ego. marka male ego dhibkaasu leeno, and we are sorry on behalf of my brothers. dumarka meel kastoo joogan, one love, we love you no matter what. idinka la-aantiina maanta inta ma joogi lahayn, anaka dhan dumaraana wada dhalay mano. marka taasna uu baxay, alxamdulillahi rabbi alcaalamiin. and aniga dreamkayga wuxuu ahaa martial art school inaan furto. to be honest, markaan America joogay waxaan rabay walaalahayga inaan
my cousins inaan school u furo discipline baro martial art school laakiin ilaahay iima alfin. But let me tell you something else. Philosophy of martial art kamartay is a self-discipline lagu bartaa truly, because qofka kartayga markii la barayo discipline la baraa. Inuu dad ula dagaalamo looma baro kartayga. Lakin some people they abuse that. Ma fahamtay? Maxaa yeelay qofka markuu uu yaqaano kartayga ama boxer maartay lama mid aha dadka kale, because laysan inaad qabatid waaye dagaalna looma ogolaan. But certain people they abuse, macnaha they abuse, right? Si xuna ugula dhaqmaan, which is not good. Laakiin aniga weligay ma sameyn horta kulley. Ani markaan yaraa waa iska rabsho badnaa. Laakiin I was no that kind of character. Laakiin markaan tagno competition aan adno, you know, like a different club markaan la dagaalamayno, I was, man, wax ima doorneen. You see what I mean? I remember one fight, wiila ligu diray madow, okay? Wiilku wuu igu weynaa, to be honest, right? Secondly, warfare maartay is supposed to touch, you know, like that, speed. Marka qofkii run oo igu dhuftano, anigana waan is iloway. I punch him back, cunugu dhulku dhacay. Waa igu weynaa, by the way. But the referee ma arkin kiisa oo igu dhuftay, kii ana ku dhuftaa la arkay. Waxay igu sameeyeen disqualified. Shit happens sometimes. But you know, Marka, I remember my senseis tell me that, you know, like when you are in the ring, you gotta empty your mind. There's no opponent in front of you. You gotta empty. Meanaha maskaxdaada empty ka dhig. Qofku lama joogo. Ma fahamtay? So that sort of thing. Teeda kale walaaleel horta dada meeshan iska hadlaya waxay iga sheegayaan war waxa hartan iska sheego ilaaha Ghafuur Rahiim saan hore idin dhahay, ilaaha Shadiid Liqaab saan hore idin dhahay. Aniga waa laga cilmi badan yahay, cilmi ma leehi. But let me tell you something. My sensei wuxuu dhahay dadka waa laba nooc. You know waxaan uga hadlay sababta uga hadlay my sensei, meena I dream hal yan ku riyoodo ilaahay markiis. I hope he's alive. Sensei ma garade marka wuxuu dhahay dadka waa laba nooc. There's people called smart and there's people called wise. So ma taqaanin between smart iyo wise. Simple fact. Wise waa qofka degan, wax markii loo sheego maqlo, waxaasuna aqoon uu weydiyo. Laakiin ninka la dhaho smart waxa weeye is an asshole. You know what? Smart person is an asshole. Simple fact. Because qofka smartka wuxuu aaminsan yahay he knows everything. Dadka kala he's superior, dadka inuu ka fiican yahay. Wax hadduu aqoonad weydiisid wuxuu ku dhahaa waa kasa, wax ma garanayo ma yaqaano qofka smart la dhaho. I'm sorry about that. Okay. So marka hadal lagu keenaa. That was that. Marka people they keep asking, man, what the hell is this asshole talking about? You know what I'm talking about, and I know what I'm talking about, and God knows what I'm talking about really. Marka baloniga hala dejino. Corona hadduu qabsaday meesha marka ina aniga isku mashquulno ma hadee. Hadda newskan daawanaya hataa waxaa la yidhi abiyuuska familka wuu bataal lahay mataqaana dumarka la abiyuus garaynayo micnaha hadee. Yeah, because of the corona la ninka inaagta guriga wada joogaan
banaan lama baxay, waa laisku baxaa dagaal, naagiya waxaa layidhi sidii mataqaanaa football ama looga ciyaaro. taasna ilahay xaqiisa maaha. war hooy, naagta dhaqankeeda leedahay, dhiiggeeda ma lihid. gabadhan shalay waxaad aragtay iyadoo weyn, wardadaa dhalay kusoo rafaaday sooma koriyey. she have a family. marka hadday ku noloshahay ma aha ina abuse garet. no disrespect man, you see. I mean, come on. aniga when I was kid, I was about a 4 to 5 years old kid, right? hooyadeyna naa qabay. he used to beat her up. allah u naxariisto, jannada allah ka waraabiyo hooyadeyda, maasha allah. aabahey waa jeclahay, inkastoon aqoon saasaan u leen, laakiin he's my father man. I love you pap, rest in peace. uu dhintay, allah iraxmo asigana. hooyadey aabahey allah u raxmo. marka ninka hooyadey dili jiray, war kalan u soo qaatano, ma fahamtay? kal aan u soo qaatay. I was about 4 to 5 years old kid, ma fahamtay? so it is very bad. laakiin hadda waxaan la yaabsanahay, ani ninkii gabadha ay guursaday hadduu abuse garay, maxaana kala qaban doona? ilaahay ima kasa kulay kowdhe. ama be a good, okay? blood is thicker than water though, right? marka walaalahayga fiiri, cafis ilaahay subxaana wa tacaala ayaan weydiisanayaa. ilaahay khalaqul raxmaanka ayaan cafis iyo masaamax weydinaya. ilaahay wuxuu yidhi, haddaad iga doonayso cafis, cabdigayga cafi. marka for that reason, inta dembi iga gashay aniga waan cafinayaa. maxaa yeelay aniba cafisaan ka rabaa, ilaahaan cafis ka rabaa sooma. marka simple fact ha laga raali ahaado. 114 inta dembi iga gashay cafis iyo masaamaxa ay yihiin. intan ka galani haddee forgive me iyo cafiya, okay? marka dee anigana ilaaha dembi dhaaf ka rabaa. maxaa yeelay ilaaha wax dilaa wax noolaya. inkastoo adduunkan temporary aan u joogno, waxaa gurigeena runtu waa hiya after aakhar weye. qaatimada allah noo suubiye. marka my people, waxa waaye, let's be frank, okay? let's talk reality, man. fear no man but Allah. asir much wax badan aan ka hadlaa umaleynaa sooma. marka sababtaan usoo gala waxay ahayd because qofaa i weydiiyey, wuxuu yidhi adiga maa jannada ku dhalata? u yidhaahno swahiliga waxay dhahaan kuuliza si ujinga, kuuliza ndio kujua. wax markaa weydisid ma waalid, markaa wax weydisid wax baad baranaysa mano. aniga markaan leeyahay jannadan aan ku dhalanay maxaa yeelay nebi aadam alayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu abuuray jannada dhexdeeda ayaa lagu abuuray, banaanka laguma abuurin. marka jannadana naga soo saaray because haddii oo dembigaas u geli lahayn oo miraas cuni lahayn, jannadan dhex joogi lahayn sooma. simple fact. marka hadda maadaama inta joogno, marka one day we go back. kulli shay arjo ila asli, shay kasta sidii originalkeeda u noqonaa. before that, jannada la shaqaysta rabtaa, naarta la shaqaysta rabtaa. so both we have to work. I know I'm an entertainer, right? so marka midda kale, qof kasta ilaahay abuur adduunkan, ilaahay wuxuu siiyey gift. fanaaniintan heesan, ilaahay gift wuxuu siiyey inay heesan. dadka sportka sameeyo, basketball player, football player, ama mataqaana dramka tumo, ama dadka actingka, ilaahay gift uu siiyey. marka dad waxaa jira giftigooda garto, dadna ma gartan ilaa ay ka dhintaan. dad ilaahay wuu kasiisiyaa giftigooda, dadna ma kasiisiyo. marka haddi waa amar ilaaha wato waay mugto. 5 faroodna ilaahay ma simin, ma kasteen. marka walaaley, please and please waxaa idinka barya hadallada negativeka
joojiya. see tahay qandha kaama qaado, qalbigay u roon tahay, you know. marka ana haddaan dhaho saanan ahay waxaanan ahayn ma noqonayo. ilaahi subxaanahu watacaala wixii iga dhigun baa noqon karaa. And that's what I believe. I believe in a faith. ma fahamti? I know mar inaan dhimanayo, laakiin I don't know when. goortay tahay ma ogi. saan ku dhimanayo ma ogi. ma diyaara, ma bas la gadooma, ma xabad, ma mindi, ma masa qanina, I don't know. ma biyan ku dhan, I don't know. ma saraan iska ma garanayo. ilaah unbaa og, because anigu caawimadsari maye. laakiin ilaahay dadaaloo dhahay, insha allah waa dadaalaynaa. ilaahay maartay towbadii tawxiidka allah nagu dilo, gefkayna geerideena allah kala dheeray. marka walaalayaal, don't be no haters though. This one I'm about to say, this is what I've been telling you. Alright? Simple fact. Remember that everything in life starts with a baby step. I'm taking a baby step to do something positive for y'all. And you guys, man, slugging me off. I don't know what I done to you. Some of you, I don't even know you. I never even met you. Ma fahamte? anigu aqoon idin ma lihi, anigana aqoon ima lihin. marka meelahaas inoo lisku caayo blah blah, it's no good, man. Remember, ilaahay agtiis waa ku sugnaa ani adiga. marka camalkaana unbaana kala wadaa. faman yacmalu mithqaala daratin khayran yara, waman yacmalu mithqaala daratin sharan yara. qaala allahu tacaala, not me, aniga ma dhihin. marka so please, don't be smart asshole, be wise. Think about it, man. Think positive. Okay? Let's be one. War Somalia dhan haddaa unite gareeda maartay, we'll be greatest. Lakin how can we be that? That's the problem. Shay kasta start with a baby step. Baby marka la dhabo ma socon karo, waa inuu gurgurtaa, taagtaagsadaa, dhadhaco. laakiin one day at a time. way haddii niiddaa samaysid, waxaa waaye kullu shayin biniya. wax haddii niidkaada gelisid positively waa samayn kartaa. but we gotta think positive, not a negative. marka inta negative wadno meel ma gaarayna. not to be honest, man. ani maxaan ka hadlay ina cadi muxumo, okay? true fact, okay? aniga maxaan ka hadlayay aqoon mad ii leedahay. alxamdulillahi rabbil caalamiin. war qofka beri wax kuu tara ilaaha og, adiga ma taqaanid. hadda anoo sanay caynaysa beri waxaa laga yaabaa beri in anu wax kuu taro ama adiga wax ii tartid. maxaa yeelay addooma ilaaha nahay maaha. ya إلهي موجود من كل مكان، سمع البصير، الله سمع البصير، هو وصوصناي الله ونكيني المأوليالو السلام عليك، هو يا قرآن قادرين عندي متى فيري. أنا when I was kid عندي وأنا أجري قادري، فهمت؟ marka laakiin qurbaha mataqaana saan dhigay. marka hadda fiiri, simple fact walaalayaal, it's not a game. I'm gonna tell you the truth and how it is. waxaan rabaa inaan sameyno. marka dadka anaga wax u sameyn rabna idinka waaye. marka idinkiiba haddii oo positive idinka helayna negative nagu wadan, see wax idinku sameynayna? bal tell me. yeah, tell me. That's the question. That is the $1 million question, all right? You gotta tell me. I want to do something for you. And you don't even like me. This is how I do. But I'm gonna keep trying as long as I'm alive. See what I mean? Madunhe do dhammaadaya ka caale ma markas wal kasta siin shay madda hadira la ahada walidad ana ibsidi
raal ahaada 114 qur-aanka 6666 aayadaha qur-aanka raal ahaada kastayna doogay dheegtana mudeemaha waana dheego haytaan marka kurik mary awkay maalin yiri wali falay waa falay faifatikum shay maalinkana ma yare sheegtay shaydan alaja min kulli aswajikum qaraari kusida kwa hiyo sina la kusema bali I love you all. That's all I can say. I'm not a hater. Ilahi igama dhigo. Ilahi subhanahu wa ta'ala ka magan galay. Okay. Love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Marka, I mean, love can conquer the world though. Yeah. Marka di meesha jecel jirin, nothing else can go. What I'm saying is, no matter what happened. Whatever past happened. This is 2021. Here and then, okay? 2021 ku jirna, mano. Hadda wixii ka dambeeyo. Everybody deserves to be given a second chance. Like all I'm saying, we want to do something for y'all. And you guys gotta support us. Marka, that's all I can say. And like, subscribe ka. Isku day, you know. Best thing for you. It's not for sale. How is that? Just to have subscribe, like, it's kasara channel. Ila di ronya. Mafahmten. Marka walaliyal. Waa idinku dheeraday and I'm sorry. Aniga, I'm only a human being, simple person like you guys. Some could never idinko kala aniga. I'm not different than you. Okay? Marka one thing macalinkay dhahay mataqaana qofka marka punch ku dhufatid, when you punch the person, qofka saddu hanuunsado adigana waa dareemaysaa. You know, markaan ciyaarayna kartega, gloves la isticmaalaa. Gloveska sidii boxer oo kale ma oo saas loo xirana ma ahan. Waa simple gloves. Haye markaad sameynayso round kick martay. Yeah? Because meeshan laf waaye. You feel the pain. And also that person is gonna feel the pain anyway. Laakiin waxaa iska dhigayna anaka mataqaana qof xanuun dareemayna, laakiin waxaa lagu leeyahay no pain no gain. Right? We can do so many things positive ways. Marka kullay familkan waxaan ka codsanaa ilmahooda inay waqti la qaataan, especially this kind of time lagu jiro koronaha. Ilmaha markay guriga imaadaan homework halala shaqeeyo, yeah, interact lagu sameeyo, ilmaha halala sheekaysto. Maxaa yeelay haddii ilmahii oo computer game iyo waxaas mashquul ku yihiin, yeah, it's not fair. Let me tell you something, right? You gotta learn someone who knows. For example, boqol kuna siiso cunugaada, okay? Birthday-giis way ama kala whatever. Inkastoo aan birthday wax anaan dhaqan u leen, laakiin qurbaan waxa way birthday wax samaysta mano, party blah blah. Okay? For example, cunuga party wuxuu leeyahay lacagaa siisay ama kala baloni iskoolku leeyahay, you know, dance school ay leeyihiin, ma aadan tegin. Ilmihii picnic ma geynin, holiday lama qaadanin, markasta lacagaa ku sasabtaa. Lacagtaas aad siinayso ma xasuusanayo cunugaas. No way. Waxaa lagu dhahaa mataqaanaa, where were you on my graduation day? Qarashka iyo waxa bixinaysa dhan lama xasuusno. Waxaa lagu dhahaa where were you on my graduation day?
Here you come, you say that I'm your pop. What kind of father are you? I hate you. I don't want to see you. Alodano. Marka, lakini ilmaha hadda waqti la qaadatid picnic geysid, for example. Okay? Picnic. You know, meesha carwada hadda geysid, meelaha ice cream isla tagtan. Cunugaas hataa markuu weynaado wuu ka sheekeynaa ice creamkaas. Wuxuu ku dhahaa, pap, you remember that day we went there? Because you was there with him. Wuu xasuusanaa. Laakiin lacag haddaa siisid, he's not gonna remember. Believe me, man. I know what I'm talking about. Okay? Marka, don't be asshole like me. I'm an asshole. Marka ilmaha waqti hala qaato. Ma fahamtay? Picnic iyo meelaha carwooyinka la geeyo, museumka, I mean to museumka carwooyinka. Museumka marka ilmaha geysid, waqti la qaadanayso. They remember that. Museumka markaas la tagtaan. You feel me? Laakiin haddaadan la tagin oo markay meel rabanba lacag la siisid, lacag la ku shubtid, they're not gonna remember nothing. You better believe me, no. Me not tell you the truth, no. Understand? Wagwan blood. They don't gotta laugh enough, man. They want to laugh, man. You see? You gotta give them back a laugh, and they will give you love, man. Understand? Like our brother Malcolm say, peace and love, you know. Eh? Yeah, man. If there's no peace, there ain't gonna be no love, you know. Alright? You know, when I was a kid, I used to see, waxaan markaan yaraa waxaan arkay mataqaana caruur hooyadooda la dagaalamaya ama aabahooda. Aniga waxaan dhihi jiray, I never had this luck, man. Be there with that time. And they're lucky. Micnaha nasiib ay leeyihiin hooyadooda la joogo ama aabahood ay ku afcilaan ama la caytamaan. What's going on? Marka usijua sawana usiku wa giza dan Swahiliga. Waxaan ogeyn waxa la matahay habeen mugdi. You know one more thing? Horta hooyaday aabe waa dhinteen Allah yarxama. Laakiin if I would get the opportunity aan ku dhahay ku afcilis iska dhaafe, subhanallah. War waxa ma dhahayno, believe me. Okay? I mean, that's that. Akhyaartan. Igra laad waa ku dheerada meesha. Marka muhiimadda aan soo galaa waxay ahayd qof ay dhahay adiga ma ku dhalatay jannada. Marka anigana jannada kuma dhalan, laakiin abkoogeena aadan Ilaahay wuxuu ku abuuray jannada dhaxdeeda. Marka that why I meant an macallinkayga isoo baray, my teacher Allah yarxama. Macallinkayga Allah yarxama waa la dilay. Gacan ka xaq daranaad dishay. Asii cunugiisa waa la dilay. Allah yarxama. Jannada Allah ku waraabiye. He was innocent, man. He did nothing wrong. Only thing he ever talk about, man, subhanallah. قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That's all he ever preached. Only thing he ever preached was that. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sasa lugudire. That's what I know. Blah 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 blah. You know, that's human nature. Like Michael Jackson said, if they say why, tell them that is human nature. Why? Yeah. Marka it is a human nature. Because dadka qaar waxa waa ku nacaan without the reason. Macallinkayga Allah yarxama kulli jannada Allah ku waraabiye. Ilaahu rabbiyo ani macallinkayga jannadana nagu kulmay bifadli fadliga ya rabbil alamin. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi عرش المجيد فعال لما يريد. جناد الله كوكس كل إله لم كوتوكر أود مليه. فهمت معلنكي مركا خيارتا إن شاء الله تعالى till end of the time. One love. Oh yeah, there's one thing I was about to say, man. Marka all they see is my trouble. No one sees my struggle. Waxay arkaan dhibaatada sameey bis dhibkayga bis ay arkaan. Laakiin rafaadka aan marayo struggle qof arkooyo male. Why?
Why is that? Why nobody sees my struggle? Why people you don't see my struggle, man? All you see is my trouble. That's it. Come on. You can do better than that, man. Some you win, some you lose. But you know what? Till end of the time, or Ilahi subhanahu wa ta'ala meesha iga bixinay aniga, I'ma be here. Aniga inshallah ta'ala, I will be entertaining for you. But waqtiga Ilaha og, Ilahi corona ni hanaga dhameeyo. Till on that time na, subscribe, like, iska saara baalka. I'm one of you. Ijaclaad ama inaca Soomaaliya tihiin, Soomaaliyaan nahay. Soomaalnima idin la hadlaya aniga. Dadkayga waa idin jeclahay. I swear to God, man, I love you guys, man. I will die for y'all. Marka, try to understand me. Okay? وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبالله التوفيق. صلاة عشاء لتكذا عشان تكون هانية. اوكي خير. السلام عليكم.